waa anigoo ah Dr. Axyaa ugu bartay muuqaalada ku saabsan indhaha iyo aragga. Haddii ay tahay markii ugu horreysay muuqaalada daawada subscribe ka saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta soo dhawaada muuqaal cusub. Marka haddii aan codka hoos u dhigo sababta waxaa waaye isbitaalaan jawaadada ku jiro qolka hooyaday xanuunsan marka daqiiqad yar ah ilaa muuqaal idinku soo duubo. Maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay ilmeynta ama ilinta ka imaanayso indhaha maxaa sababayo. Waxyaabaha sababi karaya waxay noqonayaan in haddii indhaha ay jiraan kale allergy ama xasaasiyad, sidoo kale haddii indhaha ay jiraan indha qaleel, sidoo kale infection haddii jiraan waxyaabaha sababa ayaa midaas ah. sidoo kale marka qaar waxyaabo neerfaha la xiriir noqon karta oo xaalad dhibaato aysan ahayn, sida waa aragteen jirkeen neerfo xaajo la yiraahdo markuu qofka xanaaqsan yahay oo kale neerfo shaqeeyo. sidoo kale waxaa kaloo jiro neerfo shaqeeya xilligii maaragtay oo qofka uu xaajisan yahay oo kale ama hurdo hees oo kale oo la yiraahdo sympathetic iyo parasympathetic. marka qofka markuu caajis yahay oo kale neerfaha shaqeynaya oo aragtay markuu qofka aqoonaa afka taagan oo ilmeynayo, taasna way sababi kartaa. marka haddii aad ku aragtid xaaladahan sida qofka inuu ilmeynayo oo kale, waxyaabaha ugu badan oo sababi karaya ah sida qofka inuu qabo indha qaleel. laakiin dadka qaar isweydiinayaan indha qaleel anoo qabo indhahii qaleel yihiin haddana sideeba indhaha biyo ugu imaanayaan. wax la xiriira arrintaas ma aha. markii leeyahay indha qaleel micnaheedu ma aha indhahaaga inay lahayn ilin, laakiin ilintaada ayaan tayo fiican lahayn. taas ayaa keeni karta marka inay ilin badan ay imaato. sababta keenaysa marka xataa markii aad qabto indha qaleel oo kale inay ilinta sii badatana waxaa ka mid ah indhaheena maadaama ay rabaan inay qoymaan, markaas qanjira markaa ilinta soo deynaya xataa inta ay soo saarayaan in ka badan ay soo deynayaan. marka haddii xaaladahan isku aragto ilmo badan indhaha ka imaanayaan ayaa xaaladda indha qaleel inay jirto kuwa ah. sidoo kale infectionka noocyo kala duwan noqon kara ayaa laba ah. sidoo kale allergy iyo xaaladan aan sheego haddii hurdo ku hayso oo waxba cudur aan la xirin way noqon kartaa. marka laakiin haddii oo maalintii oo kale ilin badan ay ka imaanayso, ilintaasna ay indho hur la socoto, sidoo kale cuncun la socoto, waxaa sameyn karta waxay tahay in aad tagtid dhakhtar indho haddii uu noqdo ophthalmology optometrist labadaba oo ah dhaqaatiir markaa ku takhasusay indhaha. kuwaas ayaa markaa saacidi kara noocuu yahay inay soo saaraan daaweynteeda ay ku siiyaan. muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo keenayaa. haddii aad tahay marka ugu horeyso muuqaaladan daawada like saar, sidoo kale asxaabtaada la wadaag. waxaan idin rajaa caafimaad iyo indho fiican.